soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa waddanka Suudaan halkaasi oo dowladda waddankaasi si adag ay uga hortimid cunaqabatayn Mareykanku uu ku soo rogay arrinkaasi oo si adag ay uga gilgilatay dowladda Suudaan ayaa si kulul gaashaanka ugu darurtay cunaqabataynta cusub ee Mareykanku uu ku soo rogay kadib eedeymo sheegaya in ciidamada Suudaan ay hub kiimika ah u adeegsadeen intii lagu jiray dagaalka sokeeye ee dalka ka aloosan wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa tilaabadaasi ku tilmaamtay mid hal dhinac ah sharci darro ah isla markaasna ku dhisan eedeymo aan caddayn bayaan ay soo saartay wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in Washington ay ka tallaabsatay habraacyadii caalamiga ahaa ee lagu baaro eedeymaha hubka kiimikada iyadoo aan loo marin hay-adda mamnuucidda hubka kiimikada ee magaceeda loo soo gaabiyo OPCW dowladda Suudaan waxay ku adkaysatay inaysan weligeed soo saarin haysan ama adeegsan hub kiimika ah isla markaasna si joogto ah u gudbiso warbixinada looga baahan yahay heshiiska caalamiga ah ee hubka kiimikada cunaqabataynta cusub oo dhaqan gashay 20kii bishan July ayaa ka dambeysay go'aan Mareykanku uu ku sheegay in Khartoum aysan buuxin shuruudihii looga baahnaa tillaabooyin dheeraad ah waxay xadidaysaa taageerada Mareykanka ee deymaha iyo kaalmooyinka maaliyadeed ee loo maro bangiyada horumarinta caalamiga waxay adkaysaa xeerarka dhoofinta sidoo kale waxay hakinaysaa awoodaha shirkadaha diyaaradaha ee dowladda Suudaan ay ugu safri karaan Mareykanka gargaarka bini'aadantinimo iyo badeecooyin gaar ah ayaa laga reebay cunaqabataynta Mareykanka oo saaray Suudaan Khartoum ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay la shaqeyso Mareykanka iyo hay'adda OPCW si farsamo ahaan loo xaqiijiyo eedeymaha balse waxay ku doqday inaan loo soo bandhigin wax caddayn ah ama baaritaan madax bannaan oo taageeraya sheegashooyinka Mareykanka ayaa bishii May 2025 waxa uu sheegay inuu ku qancay in dowladda Suudaan ay hub kiimika ah adeegsatay sanadkii 2024 intii uu socday dagaalka u dhaxeeya ciidamada Suudaan iyo ciidamada RSF dowladda Suudaan iyo militarigeeduna waxay sii wadaan inay si buuxda u beenayaan eedeymahaasi halka Washington ay ku adkaysanayso in Suudaan ay jabisay waajibaadkeedii caalamiga ahaa wahagaaga warkaas intaas aynu kaga gudubno markan waxaynu eegaynaa dhanka waddanka Lubnaan shalay madaxweynaha waddanka Lubnaan Joseph Aoun waxa aqalka cad ee Washington uu kala kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaana laga wada hadlay qorshayaasha la xiriira in hubka dhigista lagu sameeyo ururka Hezbollah ciidamada dowladda Lubnaan ay la wareegaan goobaha ay banaynayaan ciidamada Israa'iil inkastoo Trump si buuxda carabka ugu dhufan in Israa'iil guud ahaan ciidankeeda ay kala baxdo waddanka Lubnaan haddana madaxweynaha waddanka Lubnaan Aoun ayaa isagu waxa uu soo jeediyay in Trump uu ku riixo Israa'iil si buuxda inay uga baxdo koonfurta Lubnaan waxaana uu ku doodayaa in inta ciidanka Israa'iil ay ku jiraan gudaha Lubnaan aysan suurtagal ahayn hubka in laga dhigo ururka Hezbollah haddaba waxaa soo baxay war kale oo culus Hezbollah waxay leedahay garoonka diyaaradaha ee magaalada Beirut gebigiisa waa xirayna haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay amuurtani ururka Hezbollah ayaa soo saaray war culus oo kor u sii qaadaya khilaafka kala dhaxeeya dowladda Lubnaan kadib markii ku-xigeenka madaxa golaha siyaasadda ee ururka Maxamuud Qamaati uu ku hanjabay in diyaaradaha laga hor istaagi doono in ay ku soo degaan garoonka caalamiga ah ee Rafiiq Xariiri haddii dowladdu ay sii wado xayiraadaha la saaran duulimaadyada Iiraan
Qamati ayaa ku nuuxnuuxsaday in dowladda Lubnaan ay si ula kac ah u beegsanayso Iiraan iyo wakiiladeeda isagoo xusay in bixinta fiisooyinka ama dalku galka muwaadiniinta iyo diblomaasiyiinta Iiraan ay aad u yaraadeen halka diyaaradaha Iiraanna weli ay ka mamnuuc yihiin inay ku soo degaan garoonka magaalada Beirut. Wuxuu sheegay in Xisbullah dulqaad ay muujisay balse haddii xaaladdu sii socoto ay adeegsan doonto qaabab nabadeed isagoo ku hanjabay in markaas aysan wax diyaaradaha ku soo degi doonin garoonka diyaaradaha ee magaalada Beirut isla markaasna aysan safiirra ku sii nagaan doonin dalka. dhanka kale ila ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Lubnaan ayaa sheegaya in hadallada Qamati aysan waxba ka bedelayn go'aamada dowladda kuwaasi oo lagu sheegay in mamnuucidda diyaaradaha Iiraan la xiriirto hanjabaado hore oo Israa'iil ay sheegtay inay ku beegsanayso garoonka Beirut halka dib u soo celinta shuruudaha fiisooyinkana ay ka dambeysay walaacyo la xiriira amniga qaranka. Xisbullah ayaa sidoo kale waxay mar kale diiday qorshe kasta oo lagu doonaya in hubka looga dhigo. xildhibaan Xasan Ciisuddin ayaa farta ku fiiqay in baaqyada lagu doonayo in Xisbullah hubka looga dhigo ay yihiin kuwa aysan aqbalayn isla markaasna ay ka soo horjeedaan wada xaajoodida la leeyahay Israa'iil kuwaasi oo ku tilmaamay inay qatar ku yihiin midnimada Lubnaan isla markaasna ay u adeegayaan daraha Israa'iil. dowladda Lubnaan ayaa dhankeeda ku adkaysatay inay sii wadi doonto fulinta go'aanadeeda oo ay ku sheegtay kuwa amniga dalka iyo madax banaanidiisa mudnaan gaar ah siinaya sida hadalka loo dhigay. waa tahay wararkaasna inta aynu kaga gudubno waxaan goordhow u wareegaynaa macluumaadyada iyo xogaha ugu dambeeya ee soo baxaya ee la xiriira xiisadaha colaadeed ee gobolka bariga dhexe. dagaalka Iiraan iyo Mareykanka ayaa laga cabsi qabaa inuu isu bedelo dagaal buuxa iyadoo la hadalhayo Mareykanka in ciidamo dhanka dhulka uu diro waddanka Iiraan. boqolaal kun oo ciidamada dadweynaha iyo kuwa basiijka ayaa la sheegayaa in la diyaariyey iyadoo lagu dhawaaqay olole ciidan oo ballaaran. waxaana Iiraaniyiintu ay sheegayaan in ciidan Mareykan ah oo soo gala gudaha dalkooda macnaheedu ay ka dhigan tahay inaysan dib u laaban askartaasi. duqeymihii ugu dambeeyay ee xalay la isu wadaarsaday iyo warar culus oo soo baxay iyo weliba warar hadda soo dhacay intaynu barnaamijka ku jirnay intaan u gudbin dhammaan macluumaadkaas aynu ku hakanno qadar xayeysiin ku xirna waajibayaan oo ka dhigo wehelkaaga wararka. xaaladda bariga dhexe waa bariga dhexe oo ay ka sii daraysaa xaaladdu waxaana muuqanaya dhiilo colaadeed iyo xaalado la xiriira dagaalku in uu ballaaran karo. xuutiyiintu waxay ku hanjabayaan marinka baabilmudab inay gebi ahaanba xiri doonaan haddii Mareykanku u ballaariyo dagaalka. suurtagal waxaa ah baa laleeyahay in Trump uu amro duulaan dhanka dhulka oo ciidanka Mareykanku ay qaadaan inkastoo Iiraaniyiinta arrinkaasi ay leeyihiin waa fursad ee soo dhaqsada. duqeymo culus ayaa dhacay saacadihii u dambeeyay. xaaladdu cirka ayay ku shareeran tahay. marinka Hormuusna Iiraan waxay ku foorarisay sawaariikh markab kastoo halkaasi gooshaya haddii uusan fasax ka qaadan Iiraan waa la beegsanayaa. haddaba waxaynu ku hormaraynaa wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha Iiraan ay fulisay saacadihii u dambeeyay. ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iiraan magacooda loo soo gaabiyo IRGC ayaa sheegay in howlgalladoodii ugu dambeeyay ay ahaayeen kuwa lagu ciqaabayo sida hadalka loo yiri cadowga gardarrada sameeyay isla markaasna weli ay sii socdaan. sidan waxaa lagu baahiyey war laga sii daayay warbaahinta dowladda Iiraan. bayaan ka soo baxay ciidamada Iiraan ayaa lagu sheegay in dayuuradaha aan duuriyaha lahayn ay ku weerareen saldhigyada ciidamada Mareykanka gaar ahaan xerada Dooxa ee ku taal galbeedka magaalada Kuwait. wakaaladda wararka Tasniim ee Iiraan laga leeyahay ayaa dhankeeda tabisay in ciidamada Iiraan ay beegsadeen baqaaro rasaasta lagu kaydiyo iyo qalabka saadka ee taliska ciidamada dhulka iyagoo sheegaya in weerarku jawaab u yahay wax lagu tilmaamay
gardarooyinka soo noqnoqday ee Maraykanka. war kale oo gordhowid soo baxay militariga Iran ayaa ku nuuxnuuxsaday in dayuuradaha aan duuliyaha lahayn lagu weeraray saldhigga ciidamada cirka ee Al-Azraq ee ku yaala dalka Jordan iyo saldhigga ciidamada cirka ee Sheikh Ciise ee dalka Bahrain kuwaasi oo ay isticmaalaan ciidamada Maraykanka. bayaan ay soo saareen ciidamada Iran oo ay baahisay wakaaladda wararka Mahir ee Iran laga leeyahay ayaa lagu sheegay in dayuuradaha aan duuliyaha lahayn aroornimadii hore ee saaka lagula jarmaaday dhismayaasha hoyga iyo adeegyada ciidamada iyo sidoo kale baqaarada lagu kaydiyo qalabka ee ciidamada Maraykanka ee saldhigga Al-Azraq ee dalka Jordan. bayaanka ka soo baxay ciidanka Iran ayaa sidoo kale lagu sheegay in dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ay weerareen baqaaro waaweyn oo lagu kaydiyo qalabka goobaha iyo xarumaha dayactirka ee dayuuradaha culus ee Maraykanka ee saldhigga Sheikh Ciise ee dalka Bahrain. militariga Iran ayaa bayaankooda ku tilmaamay ciidamada Maraykanka waa sida bayaanka lagu yiri dambiile carruurta dila isla markaasna weeraradan ay qayb ka yihiin hawlgallada ay ka wadaan gobolka. bayaanka ayaa intaasi ku daray in ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ay si buuxda ugu diyaar yihiin inay si adag uga hortagaan shirqool kasta ama tilaabo kasta oo cusub waa sida bayaanka lagu yiri ee cadowga uu qaado. waxaana la sheegay in goobaha la weeraray gaar ahaan xerada Dooxa lagu tilmaamay xarun weyn oo taageero u ah ciidamada iyo qalabka Maraykanka ee gobolka. isla wararka Iran mas'uuliyiinta iyo warbaahinta Iran ayaa xaqiijiyay duqeymo culus oo kala duwan oo Maraykanku uu ku qaaday magaalooyin ku yaala gobolada dalka. telefishinka dowladda Iran ee IRIB ayaa sheegay in weerar cirka ay ku dhaceen gobolka Ilam ee galbeedka Iran ee xuduudda la leh Ciraaq. duqeymaha ayaa lala beegsaday deegaanada sidoo kale ay ka mid yihiin Jafar iyo Abdanan ee gobolka Ilam iyadoo gudoomiyaha degmada Abdanan uu xaqiijiyay in weerar cirka uu ku dhacay deegaanka Dinarokh. warbixin kale oo uu baahiyay telefishinka dowladda Iran ayaa waxay sheegtay in goob ka baxsan magaalada Bane ee gobolka Kurdistan ee galbeedka Iran lagu beegsaday sida lagu yiri hadalka weerar cadowga uu qaaday. sidoo kale telefishinka dowladda wuxuu sheegay in ciidamada Maraykanku duqeymo cirka ay ku qaadeen degmada Kubat Arhang ee gobolka Hamadan ee galbeedka dhanka Iran. sida uu sheegay telefishinka dowladda waxaa warkan laga soo xigtay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hamadan. duqeymo kale ayay warbaahinta Iran waxay sheegtay in lagu qaaday magaalooyinka Jabahar iyo Konarak ee koonfurta bari ee Iran. sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in ay jiraan duqeymo kale oo lagu qaaday gobolka Bushehr sida uu xaqiijiyay kaaliyaha amniga ee gudoomiyaha gobolka. magaalooyinka Bushehr iyo Dashti ayaa ka mid ah meelaha saaki waa berigii Maraykanku uu duqeeyay. duqeymo kale oo Maraykanku uu geystay mas'uul ka tirsan gobolka Khuzestan ee koonfurta galbeed ee Iran ayaa sheegay in weerar gantaal lagu qaaday goob ku taal magaalada Hindichan waa berigii hore ee maanta laakiin lama soo warin wax khasaare nafeed ah. dhanka Maraykanka taliska dhexe ee ciidanka Maraykanka ee magaciisa loo soo gaabiyay CENTCOM ayaa sheegay in habeenkii 11aad oo xiriir ah ay fuliyeen duqeymo xagga cirka oo ka dhan ah Iran isagoo sheegay in hawlgalka looga gol leeyahay in lagu weeqo waa si hadalka loo yiri awoodda Iran ay ku hanjabayso ayna qatar ku gelinayso maraakiibta ganacsiga ee marin biyoodka Hormuz. bayaan uu soo saaray CENTCOM ayaa lagu sheegay in ciidamada Maraykanku ay beegsadeen xarumaha hawlgallada militari ee Iran awoodda dhinaca badda goobaha dayuuradaha la dhigo xarumaha lagu kaydiyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kaabayaasha saadka militariga. CENTCOM ayaa intaa ku daray in 3 bilood ee la soo dhaafay Iran ay weerartay in ka badan 30 markab oo ganacsi oo marayay marin biyoodka caalamiga ah ee muhiimka u ah ganacsiga gobolka iyo kan caalamka. bayaanka ayaa lagu sheegay in weeraradaasi aysan lahayn waa si hadalka loo dhigaya sabab ayna qatar geliyeen boqolaal badmaaxiin rayida
isla markaasna ay weeqeen xorriyadda maraakiibta u leeyihiin inay si nabad ah u maraan biyaha caalamiga. inkastoo taliska dhexe ciidanka Mareykanka uu sheegayo in marinbiyoodka Hormuus uu furan yahay, haddana wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in ay yaraadeen gebi ahaanba maraakiibta ka gudbaysa marinkaasi. wakaaladda wararka Reuters ayaa tabisay saaka in 4 markab oo keliya shalay ay ka gudbeen marinkaasi. Reuters waxay sheegtay in maraakiibtaasi ay ahayn kuwa booyadaha ee shidaalka qaada ama kuwa gaaska LNG-ga qaada. marinka Hormuus waxaa horay colaadda ka hor maalin kasta ka gudbi jiray 150 markab oo ah kuwa booyadaha ee shidaalka xambaara. war kale oo la xiriira khasaaraha Mareykanka ka soo gaaraya dagaalka. tirada ciidamada Mareykanka ee ku dhaawacmay dagaalka ayaa kor u dhaaftay 500 oo askari, sida sarkaal Mareykan ah uu u sheegay wakaaladda wararka ee AP ee Mareykanka laga leeyahay. tiradaasi ayaa ka badan xogta rasmiga ah ee waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ugu qoran nidaamka lagu soo bandhigo khasaaraha ciidamada, kaasi oo hadda muujinaya 482 askari inay ku dhaawacmeen dagaalka. sarkaalka Mareykanka oo sheegay inaan loo ogolayn inuu warbaahinta la hadlo, isla markaasna codsaday inaan magaciisa la sheegin, ayaa waxa uu tilmaamay in nidaamka lagu soo qoro khasaaraha ciidamada soo gaara inta badan ay dhici karta dibadhac inuu ku yimaado sababo ku aadan diiwaangelinta. war arrintan la xiriira, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta wuxuu ka qayb gali doonaa munaasabadda rasmiga ah ee dalkaasi lagu geynayo meydadka askarta Mareykanka ee lagu dilay weerarada Iiraan ay ka wada bariga dhexe, sida lagu sheegay jadwalka rasmiga ah ee aqalka cad. aqalka cad ayaa sheegay in munaasabadu ay ka dhici doonto saldhigga ciidamada cirka ee Dover ee gobolka Delaware saacadda marka ay tahay 11 subaxnimo waqtiga maxalliga. wararka Mareykanka aynu ku sii soconnay, xogayaha amuuraha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa ka shanqariyay in Mareykanku diyaar u yahay in uu la galo Iiraan wada xaajood iyo xallinta khilaafka, balse wuxuu ku andacooday in Iiraan aysan dhabka ahayn wada hadallada. Rubio ayaa hadalkan ka sheegay kulan magaalada Manila ee caasimadda waddanka Philippines uu kula leeyahay dhiggiisa wadamada koonfurta bari ee Asia, kuwaasi oo muujiyey walaac weyn oo ku saabsan dib u soo cusboonaanshaha colaadda. intii uu ku sugnaa magaalada Manila, xogayaha amuuraha dibadda ee Mareykanka, halkaasi waxaa ka dhacay banaanbaxyo ballaaran oo lagaga soo horjeedo doorkiisa dagaalka Iiraan. banaanbaxyo sita erayo ay ku mid yihiin dalka laguma soo dhoweyn karo dambiilayaal ayaa dadku ay wateen. waxay kaloo wateen waa in laga mamnuucaa waddanka in uu soo galo Trump. sidoo kale Rubio ha laga mamnuuco ayay banaanbaxayaashu ku qaylinayeen. war kale oo colaadan la xiriira, xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Pete Hegseth ayaa sheegay in qiyaasaha hadda qarashka dagaalka Mareykanka uga baxay ay gaarayso 37 bilyan iyo 500 milyan oo dollar, isagoo xusay in Mareykanku uu sii wado waxa ugu yeeray cadaadiska military iyo dhaqaale ee saaran Tehran. qarashka uu soo bandhigay Pete Hegseth ayaa aad uga yar qiimaynta khubarada dagaalka, kuwaasi oo sheegaya in lacagtaasi laba jibaarkeed Mareykanka ay uga baxday dagaalka. dhanka kale, xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka odayaasha ama sanadka ee Mareykanka ayaa si adag u dhaliilay maamulka madaxweyne Donald Trump, iyagoo su'aal adag ka keenay codsiga dowladda ee miisaaniyad dheeraad ah oo lagu maalgeliyo dagaalka Iiraan. Senator Patty Murray ayaa ku eedeeyay Trump inuu marar badan sheegay in heshiis nabadeed uu dhow yahay, haddana Koongareeska ka codsanayo lacag dheeraad ah oo gaaraysa 70 bilyan oo dollar. Senator Kristen Gillibrand ayaa iyaduna waxay ku dhalishay maamulka inuu doonayo lacag aan xad lahayn oo hub lagu iibiyo, halka mudnaanta aan la siin caafimaadka, cuntada, guryaha iyo beeraha. Senator Gary Peters ayaa isna wuxuu ku eedeeyay Hegseth inuusan lahayn istiraatiijiyad cad oo lagu guulaysto dagaalka. Hegseth ayaa eedaasi ku tilmaamay mid aan mas'uuliyad lahayn, halka Peters uga jawaabay in dhibaatadu aysan ahayn lacag balse ay tahay hogaamin. Saamaynta dagaalka
qiimaha shidaalka ayaa sare u sii kacaya iyadoo qiimaha fuustada shidaalka qayrin imika ay gaartay $92. waxaana la sheegayaa in arrimahani ay salka ku hayaan xirnaanshaha marinka Hormuus oo Iiraan si buuxda ay u xirtay. waa hagaag intaana ka bixin barnaamijka isha aynu marayno wixii warar ah ee degdeg ah ee ku soo dhacay hadda intaynu barnaamijka ku jirnay warqabadka HBN. wararka hadda soo dhacaya waxaa ka mid ah in shirkadda ugu weyn adduunka ee maraakiibta kuteenarada xambaara iska leh ee lagu magacaabo CMA CHM ee Faransiiska laga leeyahay ay sheegayso inay soo rigi doonto xaalad degdeg ah oo la xiriirta maraakiibteeda kuteenarada xambaara sababtan ay tahay shidaalka oo yaraanaya iyo xirnaanshaha marinka Hormuuz. arrintan ayaa saameyn ku yeelan karta sahayda kuteenarada ee caalamka isaga kala gooshta. wararka kale ee imika soo dhacaya haddii aynu eegno waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Pakistan ayaa waxaa la sheegayaa in wadahadallo uu kula yeeshay waddanka Pakistan mas-uuliyiinta waddankaasi iyadoo wadahadaladuna ku aadan yihiin qorshayaasha lagu doonayo dagaalka in lagu soo gabagabeeyo. Pakistan ayaa riixaysa in dib loo bilaabo wadaxaajoodka waxaana soo baxay warar sheegaya in diblomaasiyiin ka socota Turkiga, Masar, Pakistan, Qatar ay doonayaan in la aqbalo hindisaha 10 maalmood xabad joojina laakiin Iiraan ayaa la sheegayaa inaysan ku qanacsanayn hindisayaasha la xiriira in 10 maalmood oo qura dagaalka la joojiyo haddana dib Trump uu bilaabo. waxaana kaloo Iiraaniyiinta ay muujinayaan in kalsooni darro weyn ay ku qabaan Trump iyo maamulkiisa. وهجاج dhinaca kale warar soo dhacay waxay sheegayaan saakay waa barigii in hawada magaalada Tehran ee caasimadda la howlgeliyay nidaamyada difaaca hawada waa markii ugu horeysay la dareemo in weerar lagu yahay magaalada Tehran laakiin lama sheegin wax weerar ah waxay u badan tahay baa leeyahay in ay tijaabo ahaayeen nidaamyada difaaca. dhinaca kale xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Pete Hegseth ayaa waxa uu ku eedeynayaa Shiinaha iyo Ruushka inay taageerayaan Iiraan. warkan waa war weyn waxaana arrintan ku soo beegmaysaa iyadoo Iiraan la sheegayo inay heshay nidaamyo difaac iyo qalab dagaal oo casri ah waxaana loo badinayaa xalay wixii ilaa iyo saaki waa bariga ka socday hawada magaalada Tehran inay ahaayeen qalabka difaaca hawada oo cusub oo la tijaabinayo bacdama dagaalka laga yaabo inuu ballaarto. waa hagaag inta ayaan ku soo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. si aad u hesho wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir oo aynu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.